ismaamulka magaalada Mandera odayaasha ku dhaqan ismaamulka magaalada Mandera waxa ay sheegeen inaysan mamnuuc ka tahay in ismaamulka magaalada Mandera gudihiisa lagu iibiyo qaadka taasina ay wax suurtagal lahayn falcelin eedeyno kadib ayaa shacabka ka warbixiyay waxayna ku dhawaaqeen arrintaas inay tahay ka ganacsi been abuur ah aysan ku imaan karin xagga dawladda wararkii imaanaya deegaanka Sala ee isla maamulka gobolka Waqooyi Bari ka tirsan gaar ahaan magaalada Mandera ayaa waxay soo saareen amar la xiriira xakamaynta qaadka sida cunistiisa iyo ka ganacsigiisa inay waajibaadkooda halka lagu soo afjaro guddiga odayaasha ayaa amardan soo saaray warbaahinta la wadaageen waxa la sheegay in qaadka lagu dhaxgadi karin magaalada dhexdeeda laga mamnuuci karo si markaas loo ogaado xakamaynta qaadka aadan daahiyo qoriyo odayaasha deegaanka ismaamulka Mandera kamida warbaahinta oo noo warramay sheegay hadalkiisana wuxuu kamid ahaa in ninka jaadka cuna aan janaasa lagu tukanaynin waxaana kala jeedaa uu yiri kuwa salaada tukanaya sida diinta qabto lagu fulinayo qofka jaadka cuna salaada tukada isaga kuma jiro waa in la waaniyaa odayaasha ay shijraayadu markaas ku qabteen kuna dhawaaqeen amradan ayay sheegeen khatar ku tahay dhibaatooyin badan iyo ku abuuri karaan baahida waxaan dhammaan dadka deegaanka Sala ismaamulka magaalada Mandera ka tirsan isku raacay la fuliyo amradan qofkii furi waayay la muteysiyo iqaab ku aadan sharciga dawladda aadan daahiye ayaa sheegay in khatar ku tahay dalalka gaar ahaan ismaamulka magaalada Mandera in dhalinyarada ay isticmaaleen maandooriyaha sida qaadka oo kale aysan xitaa waxbarashada ku wanaagsaneen ilaa 4 bilood ayaa wadna yiri wacyigelinta waxaana jira 4 dumar ah iyo hal nin oo magaalada jaad ku iibin jiray markaan kala hadalnay waxay naga ogolaadeen hadda ganacsi kale ay ka furteen ayuu intaas raaciyay odayaasha deegaanka ayay sheegayaan in inay arrintan tahay mid laga maarmin maadaama ay dhalinyarada ay ku jiraan maadaama ay dhalinyarada hadda ay ku jiraan iskoolaadka waxbarashada si loo ilaaliyo